السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين ما والبجوكتان وحنا اللي هاي لايك and share and subscribe وحصارتن يوتيوب كيغا جباير اوفيشال بريهان وانو كلا بيا كلا محلو جري يسا وانو كلا باديوني ها وقتيغو ايا ماركتي نوغو يرا ama waqtiga ayaa nagu badnaa howlo badan ayaa maaragtay ayaan ku jiray oo aniga aan qabsanayay maanta waa weekend marka waxaan idhi bal asxaabtaadii intii nool intii dhimatayba Allah u naxariisto intii dhibaataysan ilaahay dhibka ka saaro intii muruga ku jirto waxaan leenahay ilaahu murugada ka saar intii farxad ku jirtana waxaan leenahay ilaahu farxadda u kordhi intii aqal gashayna waxaan leenahay awlaad khayr qaba Allah kala siiyo intii de kala tagtana waxaan leenahay waqtigiina iyo waayihiina ayuun boonta ku koobnaaye marka mar kale ku celi aad baan marka hore salaamayaa salaan kadib waxa aan halkan usoo fariisto waxa weeye arrin yar baan waxaan rabaa oo aan rabo inaan ka hadlo oo aniga aan asxaabteeda waxaan rabaa inaan la wadaago horta marka hore ilaahay baa naga qaado cudurkan coronavirus baa magaaladii wareeriyey adduunkii wareeriyey meel walba maxaa la oran jiray hebelka lockdown iyo ayaanu ku jirnaa insha Allah waa laga baxayaa qof waliba wuxuu ku noqon doonaa 2020 taariikh oo qofka meel ku qorto oo u yaal ayuu ku noqon doonaa ani ahaantayda 2020 horta waa sanad walba wuxuu waqti waqtigiisii baa iisu wataa waxaan leeyahay sanadkii inkastuu gabagaba uu sii yahayba oo waqtigiisii hadda bishii 11aad hadda maxay maraysaaba waa 22 maanta bishii 11aad maraysaa marka waqtigii sanad koob kasii dhamaanay waqtigu waa la yaab waxa leedahayba waqtigu war dheeraa sanadku gaabanaa ya mar dhow waxa arkaysaa saacadihiiba mutaqaan ku noqdaan meel kale ka dhacaan okay marka maxaan hayaa waxa aan hayaa barnaamij yar oo aan leeyahay dhalinyarta waxaan rabaa inaan la taliyo qofka bini'aadmiga ah waxa wanaagsan waxa uu dad waxaa jira oo wax ayna qabsan karin laakiin ay wixii ka baqayaan markaan waxaan ku oran lahaa talooyinkan baan ku siinayaa talada ugu horeysa aan ka bilaabayo waxa weeye subaxii marka aad soo kacdo inta aad sariirta saaran tahay gabaray ama wiilow waxa inta aadan ku ordin taleefankaaga aadan gelin social media aadan gelin sida loo yaqaano it could be anything social media Facebook, Snapchat, WhatsApp, TikTok, YouTube waxaad ku cararaysaa ama qof message kuu soo qoray aad eegaysid waxaa marka hore kaaga fiican in aad adiga marka hore aad tiraahdaa alxamdulillah alladhi axyaana bacda maa amaatana wa ilayhi mashuur waxa waaye qofka bini'aadmiga ah anagoo dhan markii habeenkii aan hurudno waxa weeye kulli qof walba ogi waa loo sheegay inuu qofkii inuu yahay mayd you never know inaad subaxina soo kaxayso you never know mataqaanaa meesha aad tegayso adigu waxaa ka waraysaa inaad soo noqotay oo aad adduunkii aad mataqaanaa kusoo laabatay laakiin ilama aha marka qof iyo nasiibkiisa maaragtay haddii maanta aad noolaato berri dad kale ayaa dhimanaya you never know inaad noolaan doonto ilaa iyo 100 sano ilaahay baa garanaya marka inta aad aqrido waxay ku noqonaysaa maalintaada maalin aad u qurux badan maalin maaragtay waxay ku noqonaysaa maalin farxad leh haddii laakiin aadan alxamdulillah iyo ilaahay aa u mahad celino oo aad hore ka gasho maxaan ku raahdo qof aad ku mashquulayso qof ka daba cararaysid iyo dad aad mataqaanaa xamanayso dad aad caayayso oo maaragtay dad aad dhibaataynayso inta salaamka ku furtaa ku wanaagsan kadib salaadaada subax tuko
kadib waxaa sameysaa qofka bini'aadmiga waxaa fiican inuu ani ahaantayda maan ahaan jirin dadka subaxi kaca muddo ilaa 10 sano ayaan ka badan baan hadda subaxi kaca qof waxaan ahay waqtigiisa maaragtay waqti aan dhigna time geliya subax inaan kaco aan maaragtay yoomkayga inaan raadsado quudkayga ilaahay baa quud ka bixiya marka waxa weeye ani ahaantay waxaan sameeyo waxa waaye subax markaan soo kaco waan jimicsadaa qofka bini'aadmiga marka aad jimicsidid jimicsiga dhowr nooc waaye dhulkaa seexanaysaa lugaha kala fidinaysaa derbiga lagu saaraysaa insha allah mar baan soo gelin doonaa qaabka subax loo jimicsado jimicsigu marka aad jirkaaga aad jimicsi aad geliso oo maaragtay halkan ilaa garbaha ilaa iyo lugaha oo waxaa jira maaragtay caagag oo dhulka la dhigto oo aad mataqaanaa saas sida oo sabaayada camal loo sameyn camal aad ku sameynayso oo kaleeto oo ama aad push up aad samaysid ilaa iyo 20 haddaad push upka aadan samayn karin waxaad samaysaa 15 20 30 ayaa samayn kartaa macnaha waxaa laga wadaa qofkii maaragtay subaxi markii adiga markii oo jimicsiga aad samaysid jirkaaga wuxuu ku noqonayaa jir mataqaanaa oo aan ku jirin daal yani dadku hore waxay ka raadiyaan waxaa la yidhaahda shaax ama kafee ka raadiyaan oo dhahaan madaxay xanuunaya aniga madax xanuunaan lasoo kacay madax xanuunka halkaan ku jira halkaan ka bilaabma waa dhiig halkaa fariisto waayo marka waxaa ku fiican inuu qofkii maaragtay inuu jimicsi noo sameeyo oo maaragtay after jimicsiga aad samaysid waxaad samayn kartaa banaanka inaad u baxdo haddii jawiga uu mataqaanaa uu roob jiro ama uu qabow yar jiro ama uu kulal uu jirin inkastoo hadda aan ku jirno xilli oo qabow aan ku jirno inaad banaanka u baxdo aad ku jimicsatid oo banaanka ku orodid waa muhiim waaye in qofku inuu ordo maxaa waaye wadnahaaga ayaa mataqaanaa wuxuu helayaa mataqaanaa si uu maaragtay farxad uu helo maaragtay farxad si wadnaha uu helo haddii laakiin hurdo kasoo kacdo aad halkaas kasoo fariisato waxa biyo shaah kul iska cabtid kafee iska cabtid halkaas ka fariisatid waxba jirkaagii aadan ku sameynin ama wiil ama gabar aad tahay waxa kugu dhacaya waxa la yidhaha depressa kugu dhacaya noloshu haddii wax walba aad ku jirto kow haddii aad yurub aad joogto oo xero aad ku jirto ama africa xero aad ku jirto ama aadan shaqaysatid oo milyaneer aad tahay oo waxaa arkaysaa qof milyaneer ah oo waxba wax haysta laakiin xagga caafimaadku ka liito qof waxaa arkaysaa faqiir ah oo xagga caafimaadka ku fiican marka waxaan ku oran lahaa mar walba in aad adiga maaragtay in aad naftaada waa in aad jimicsi aad samaysaa jimicsiga waxay ka mid tahay farxadda haddii aad maalintaada mataqaanaa maalin oo jimicsi aad siiso waxay ku noqonaysaa maalin aad u farax badan laakiin adigoo mataqaanaa jirkaagii jimicsi aadan siinin waxaa noqonaysaa qof mataqaanaa oo goob iskuul markaa aado ama sida loo yaqaano malcaamada ama dugsi aad tagto kaleeto ama shaqooyinka ama meelo maaragtay ballan ku leh kaleeto wajiga waxaa la oranaya weji oo mataqaanaa oo xanaaqsan ayuu ahaanayaa laakiin qofka markuu jimicsi uu sameeyo oo biyo badan qofka cabo weji qurux badan farxad firfircooni xagga qofka waa dareemi kartaa qofkaasoo kaleeto marka ani ahaantayda waa secretka privatekayga waxa aan sameeyo dad badan waxay dhahaan Jubeiro weli maaragtay you look the same sidaada weli u agtaa ilaahay baa maaragtay qof walba wuxuu siiyey jir u gooniya shantaada farood Soomaali waxay tiraa isku mid maaha bay tiraahdaa marka qof waliba maaragtay ilaahay qaab uu uumay marka aniga waxaan oran lahaa dhihi lahaa aan kula taliye aan isla talino marka walaal aniga waxaan ku oran lahaa kuna fiican in yoomkaaga inaad ku bilaawdo yoon jimicsi ah markaad jimicsato oo aad jimicsiga soo dhamaysato ayaad social mediaha aadi kartaa 10 minutes aad fiirsan kartaa danaha qabsan kartaa laakiin haddaad dhahdo waa soo kacayaa qolkaasaan ku jirayaa social media ku jirayaa
wax oo la yiraahdo sports ama riyaada ama jimicsi ma sameynayay debraysa kugu dhacaya. debrayskan waxyaalo badan oo keena waxaa keena waxaa ka mid ah haddii adoo dhalinyaro aad tahay da-daada ee 33 caloosha ay ku weyn tahay shaah badan aa cabtid waxaa la kulmaysaa sonkor, waxaa la kulmaysaa dhiikar, waxaa la kulmaysaa madax xanuun, waxaa la kulmaysaa daal, waxaa la kulmaysaa maaragtay keliya xanuun, waxaa la kulmaysaa gastric aan kaa bixinin, waxaa la kulmaysaa walwal, waxaa la adigu you name it wax kasta oo xanuuno badan oo mataqaana oo yaryar oo yaacay dhan baa mataqaana soo kaa soo aruuraya. adiga dhan waxaa noqonaysaa qof, waxaa noqonaysaa maaragtay xanuun ka bixin la yiraahdo xanuunka uu ku jiro u yahay. marka xanuunkaas ay uga baxdaa, xanuunka waxaa uga baxdaa inaa cabto biyo badan, inaa subaxii maaragtay haba shaqeynba kala dhicin shaqa ma haystiin, shaqa ma haystiin, iskuul maayo kan ma no. ilaahay waa qafuur raxiim, ilaahay asaga wuu kuu jeedaa qofka adiga aad tahay, laakiin ilaahay wuxuu ku yidhi dadaal anna waan kula jirayaa. marka waxaa samaysaa haddii aadan shaqo haysan, haddii aadan waxba aada haysan, haddii aad shaqo haysatid, haddii aad wax walba haysatid, waxaad ku bedeshaa in aad mataqaan yoomkaaga aad ku bilowdaa wax la yiraahdo jimicsi. hadda banaanka aad u bixi karin oo banaanka aad leedahay qabow baa ka jira qolkaaga dhexdiisa ah, haddaa leedahay gymka ma iska bixin kari, ma tegi kari, ma aadi kari, ma awoodi kari, okay meesha adiga aad degan tahay qolkaaga ayaa mataqaana ku dhex samayn kartaa jimicsi. daaqada iska fur, muhiimka waxaa waaye qofka markuu subax soo kaco daaqada inuu furo waaye, waxaa waaye inuu qolkii uu ku leersado oo oxygen in iyo out ah heshi waaye. qolka ku dhex sameeya jimicsi si maaragtay oo jirkaagana mataqaanaa uu helo maaragtay faa'iido aad u fara badan. marka waxaan in leeyahay intaan isku arki doono videoga xiga, comment iyo like-gaaga kusoo qor. marka waxaan leeyahay sidaa iyo nabadgelyo, like and share and subscribe. sidaa iyo waxaan isku ognahay inaad jimicsataan, nafta ayaa u baahan. nabaday.